sidee shaqada loo caddeeyaa nidaam loo sameeyaa sidee nidaam loo sameeyaa ayaynu galaynaa marka nidaamka markaynu samaysano ayaynu garan karnaa qof waliba siduu u shaqeynaya marka waxa u horeeya in doonayna isweydiina waa maxay waa ahdaafta laga leeyahay maamulka ibni aadamka muxuu yihi waa in wax la soo saaro waxaa la soo saarayaa ama faa'iido ha noqdo ama ujeeddo kale ha noqdo waa in wax la soo saaro marka qofka aad shaqo u dirayso waa inaad cabiri karto shaqadiisa inuu shaqadii qabtay iyo inaanu qaban waa inaad cabiri karto productivity baynu u soconaa kow marka waxaynu ku cabiraynaa productivity-ga qof kastaa shaqada uu qabtay iyo wax soo saarkiisu intuu leegi marka haddii aanan nidaam maamul oo shaqaale lahayn qofka aan abaal marinayo ma garanayo waxaa laga yaabaa kii ugu liitay inaan abaal mariyo mar haddaanan garanaynin wax soo saar xadidnaayoo laga rabay si kalaa loo jeedaayo waa laga dambeeyaayo kana si gaara uu cusiiyeyo laakiin qofka hadduu jiro wax lagu cabirayo iyo productivity wax soo saar laga rabo waxaa lagaa rabaa inaad 10 qof wax ka iibiso tusaale haddaynu iib ka hadalno maanta maalintiina 10 qof wax ka iibisa lagaa rabaa dabadeedna 5 qof baad u dirtay mid walba waxaad tiri maalin walba 10 qof baad lagaa rabaa bishii markay dhamaatay labadii bilood markay dhamaatay saddexdii bilood markay dhamaatay maxaad u calculate garanaysaa sanadkii markuu dhamaatay maxaad u calculate garanaysaa 365 maalmood baad 10 ugu dhufanaysaa hadii qof walba soo ba dadna intii uu wax ka iibiyay baad ka jaraysaa dadna keeba ugu sareeya soo standard cad ma qofka ugu sareeyo baa la abaal marinaya marka wuxuu doonaha sameeyo haddii de waxa lagu heshiiyay ka yahay haddii lagu heshiiyay akhlaaq haddii lagu heshiiyay haddii lagu heshiiyay maxaa la yiraahdaa teamwork haddii lagu heshiiyay wixii la doonaha lagu heshiiyo marka human resource-ku waxa uu hadafkiisu yahay waxa weeye wax soo saarka in la ogaado lana caddeeyo qof walba wax soo saarkiisa laba quality-ga waxa soo saaray haddii ay yihiin wax liita ka warrama haddaan 10 qof wax ka iibiyeyo min $1 iyo haddaan 10 qof ka iibiyo min 20 kuna ma isku mid ba ya isku quality ba marka waa inaan haddana level kale u gudbo idhaahdo waxa labaad aynu eegaynana waa maxay waxaanu qofku qabtay quality-giisa baynu eegaynaa saddex waxaynu eegaynaa service-ka qofku uu qabtay adeegu qofku raaciyay haddii wax badan iibiyey wax soo saarkiisuna fiicnaa dadkii oo dhan caayay ama xumeeyey ka warrama magaaladiiba ay iswada jiileen ka warrama adeeg wuxuu de shirkadii sumcaddii buu ka dilay lacag buu soo ururiyey ha laakiin dubku ugu soo noqon maayaan qolada uu doorka lacagta ka ururiyey miduu caayay iyo miduu maagay iyo miduu maxaa la yidhaahdaa dabeedna waxaa la odhanayaa marka kambanigaa la maqlo kambani hebel ninkii un baa lagu xukumay waxa la odhanayaa waa qoladii waan garanaynaa iska daaya ninkii masaajidka kabaa lagaga xaday muxuu yidhi wata tuugti isu yeedhatay buu waa kuwa isu yeedhay buu eedaankii dee u haystaa inay qoladii kabaa xadi jirtay isu yeedhanayso marka macnaheedu waxa weeye haddii aad waxaad ka shaqaynaysaa ay noqoto waxaanu la socon adeeg wanaagsani macnihiisu waxay noqonaysaa in hadhowta la yidhahdo waa kaa kambanigii dadka caayi jiray waa kaa kambanigii bilaa sidan aha dadna qofka waxyaabaha human resource aynu uga jeedno saddexdaasaa ugu muhiimsan laakiin kuwayo kale oo badan ba waynu eegi karnaa laakiin waxaynu u baahannahay saddexdan inaynu fahmno markaynu dadkii maamulayno markaynu doonayno hadaf inaynu wada xaqiijino markaynu doonayno waxaynu isku ognayn inaynu ku shaqayno waxyaabaha aynu isku cabirayno waxaa ka mid a qof waliba muxuu soo saaray kow waxaynu isku cabirayna waxaa ka mid a qof waliba wuxuu soo saaray tayadoodu waa maxay waxaynu isku cabiraynaa qof waliba siduu u adeegay iyo wax soo saarku sameeyey maxaa la yidhahdaa wuxuu ku daray waa maxay